barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى allaha sareeya kitaab agtiisa ah ayuu ku qoray oo yaala carshiga naxariisteeda ayaa ka hormartay caradeeda naxariistana lagama siibo ilaa mid hoogay mooyee qof aan naxariisan looma naxariisto anigana waxaan jeclahay inaan dul istaago waxyaabaha qaar oo matalaya naxariistaasi midaasi aan u baahannahay maantadan aan joogno muuqaaladaas waxaa ka mid ah isku naxariisashada marka la iskhilaafo allaha sareeya hadduu doono ummadan inuu ku kulmiyo hal kelimo oo kaliya diinta faracyadeeda iyo qaybaheeda wuu samayn lahaa balse allah kitaabka ayuu dhex yeelay aayado cadcad oo sugan iyo kuwo kale oo isku eg kuwaasi oo dhowr waji ay ka suurtagelayaan dhanka tafsiirinta saxaabadu waxay isku khilaafeen furuucda diinta waxay isku khilaafeen fahamka waaqica waxay isku khilaafeen waxyaabaha mudan sida loo kala hormarinayo waxaa arrimahaas ka dhashay madaaristii tafsiirka kuwii fiqiga kuwii usuulka dadkuna dhinac ilaa dhinac way noolaayeen sideen khilaafkaas uga yeelaynaa aalad naxariis ikhtilaaf kala duwan u dhigma falgal khayraada falgal samo iyo wanaag ka taliya ra'yiyadeenna oo kala duwan iyo qulubteenna oo midaysan waa inaanan khilaafkaasi ka yeelin waddadii kala go'a qaraabagoyntii walaaltinimada midaasi oo na gelinaysa halista isgaalaysiinta iyo isbaadiyeenta iyo daaca alla ka bixidda isjaahileynta iyo isbidcaynta yacni waa macno weyn wallaahi maanta qofka jooga kutubta islaamiga ayuu ka raadinayaa wuxuuna sigayaa inuu nuclear ka helo canaawiinta kutubada oo ah seefaha culculus iyo bombooyinka waxbaabi'iya iyo sawaariikhda iyo hubka waxbaabi'iya inay dadku qaarkood qaarka kale isku radiyaan masaa'il jus'i ah oo haddana farac ah oo ay ixtimaalayso waxyaabahayna tusinayaan nusuustu oo ay ixtimaalayso ijtihaadaadka iyo dadaalkay bixiyeen fuqahadu hadda iyo mar horeba oo ay ixtimaalayso maqaasida shareecadu iyo deegaanada kala duwan balse waxaa ciriiri galay wacyigii iyo nafafkii markaasaan ku dhacnay waxaan dadka uga digaynay sidaa darteed ducaaddu waxay u baahan yihiin inay tusaale u soo qaataan qadiyadan oo kale inay ra'yida isdhaafsadaan oo ay wada sheekaystaan balse naxariistaana inay baaqi ahaato sida uu ku yiriba imaamu shaafici asxaabtiisa mid ka mid ah hebelow miyaanan walaalo ahaan karin yaanba isku waafaqin hal mas'alo kaliyahe macnahaasi oo uu sheegay imaamu shaafici isagoo khilaafay imaamu maalik oo ahaa ardaygiisii iyadoo imaamu maalik ku yiri waxaan arkaa in ilaahay iftiin cilmiga ka mida kugu shubay ee ha ku daminin mugdiyada macsiyada shaafici madiina ayuu ka tegay wuxuuna alifay kitaab ugu magac daray khilaafkii ka dhaxeeyay maalig iyo shaafici sidaa oo ay tahana naxariistani ayuu tilmaamayay isagoo aad u jecel imaamu maalik wuxuu dhahayay haddii la sheego imaamu maalik waa imaamkii najd maalig waa xujadii alle ee dadkiisa lagama helayo samada hoosteeda wax ka saxiixsan kitaabka imaamu maalik haddaysan ahaan lahayn imaamu maalik iyo ibnu cuyeyna cilmigu xijaas uu ka dhammaan lahaa sidaa oo kale imaamu axmed wuxuu khilaafay sheekhiisa shaaficina baqdaad ayuu ka tegay masar ayuu tegay ardaygiisana wuxuu ka yidhi baqdaad waan ka soo tegay ugamana soo tegin qof ka xalaal miirasho badan ka cilmi badan ka aqoon badan axmed ibnu xambal kadibna wuxuu yidhi waxay leeyihiin axmed baad booqanaysaa isna wuu soo booqanayaa waxaan idhi sharaftu kama suushaba gurigiisa hadduu soo booqdo waa fadli uu leeyahay ama aan booqdo waa fadli labada fadliba labada xaaladba imaamu axmed wuxuu sheekhiisa ka yidhi wallaahi 30 sano habeenna ma baryin ilaa waan u duceynayay imaamu shaafici wuxuu yidhi wiilkiisa cabdulaahi aabbo waan ku arkaa markasta waad u ducaysaa aabba macaanow yuu yahay shaaficigaan aad u ducaynayso wuxuu yidhi wiilkaygiiyo shaafici wuxuu dunida u yahay sida qorraxdii dadkana wuxuu u yahay sida caafimaadkii bal haddaba fiiri labadaasi beddel ma leeyihiin ama wax kale ibnu mubaarak ayaa maqlay nin wax ka sheegaya abu xaniifa wuxuu arkay khilaaf u dhexeeya abu xaniifa iyo nin kale mas'aladaasuu ku yidhi war midkaagan buurta hirtinayow si uu u dhaawaco madaxaada u nax ee ha u naxin buurta kaasi waa macno wanaagsan oo la rabo inuu xaadir ku ahaado dhaqanka ducaadda waxaan ku soo gabagabeynayaa qadiyad kale in naxariistani lagu tilmaamay nabiga sallallahu alayhi wasallam
waa naxariis caalamkao dhan u ahaatay. Ereyga caalamiin waxay koobaysaa mu'minka, waxay koobaysaa gaalka, waxay koobaysaa xayawaanka aan hadlin iyo geedaha kuwa aan dhaqaaqina afkala. waxaan ka ogaanaynaa dadka qudbeeyay a'immadaba oo dadka u qudbeeya jimco waliba lacnadooyin midba lacnad ku xigta ayay dirayaan kuwa diinta ku khilaafsan. maahan sababta cadownimadooda ama sababka qooqooda ama sababka dulmigooda, balse waa sababta isku khilaafidda diinta. waxaan ognahay in habaarka qof aan muslim ahayn uu yahay sababta, sida Allahba sheegay. taasi waa sababta caasintooda iyo xadgudubka ay sameeyeen. sidaa oo kale waxaan leenahay ilaahu ummadan tusi wadada toosan oo lagu sharfayo dadka ku adeecsan. waxaa habboon inaan dhahno oo lagu hanuuniyo ehelka macsida, maxaa yeelay qofka hanuunka ugu yeeraya muslimka agtiisa waa ka horumarsan yahay inaan dhahno oo la duleeyo ahlu macsiyada. taasi waa adabka iyo dhaqanka ducada, taasoo ah qayb ka mid a fariinta naxariista oo u sidno dadka kale. sidoo kale kelimada ugu dambaysa waxyaabaha ka muuqato naxariista deegaanka. waxaan aaminsanahay mid ka mid a dhibaatooyinka maanta caalamka galbeed wuxuu ula dhaqmay deegaanka qaabka maamulidda iyo ka sarreynta iyo haysashada. mafhuumka saxda ah ee qur-aanka wuxuu kula dhaqmayaa qaab naxariis leh. deegaanka dadka in loo saqiro, inay uga shaqaystaan waxyaabaha khayrku uga soo noqonayo iyo inay barako ka helaan dadka deegaanka degan. sidaa darteed naxariistu xitaa xayawaanka, haddii aad xayawaanka gowracaysaan si wanaagsan u gowraca. midkiin haddii uu wax gowracayo midida ha afaysto, xayawaanku gowracayana ha ugu raaco. sidaa darteed lama ogola naxariis la-aan in lagula dhaqmo xayawaanka. mid baa mar hore igu yeeray barnaamijka itijaahul macaakis. waxaan ku ilaahay wuxuusan ogoleen xayawaanaadka in laisku diro dulmi lagu sameeyo, balka waran inaan dad isku diro. maxaa yeelay dadka hadafka ugu dambeeya waxayba u maleeyaan in qofku xadka uu ka baxo oo midba midka ka soo horjeeda uu lacnado. taas waxaadba u malaydaaba tusaale. annagu waxaan doonaynaa in laysku naxariisto, lana wada hadlo, la isna fahmo iyadoo ay jirto naxariistaasi iyo isku dhimrintaasi.